Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 50 Al-shabaab ay ku dileen howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka kaasi oo ka dhacay deegaanka Dabaqle oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalada Masagawa iyo deegaanka Cosweyne ee gobolka Galgaduud. War-saxaafadeed ka soo baxay Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xubnaha lagu dilay howlgalkan isugu jireen horjoogayaal iyo maleeshiyaad kale. Waxay dowladdu sheegtay in howlgalkan uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ay heleen xogta. War-saxaafadeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka ay hadda ku sugan yihiin goobihii uu dagaalka ka dhacay. Dhanka kale, maalmihii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka waday deegaanka Beerayabaal oo hoostaga degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan, iyadoona sidoo kale gacanta ay ku dhigeen deegaano ka tirsan Jubbooyinka kuwaasi oo hadda ay ku nool yihiin dadka shacabka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Dowladda Federaalk ee Soomaaliya.